بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caaw barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah waa Iiraan oo la soo baxday xeelad farsamo cusub oo ay ku qaadayso weerarada sawaariikhda ee ay ku hayso Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe Mareykanka iyo Israa'iil ayaa duqeyntii ugu cusleyd caawa waxay ku qaadeen magaalada Dahraan iyo magaalooyinka kale ee dalka Iiraan xaaladuna waa sidan sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa waa magaalada Tel Aviv oo caawa ilaa iyo galabta lagu garaacay sawaariikhdii ugu adkeyd burbur iyo baaba xoogan ayaa soo gaaray ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga oo wacad ku maray in ay beegsan doonaan maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ee ku socda Israa'iil iyo kuwa maraya marinka Hormuz Mareykanka oo ka qayliyay diyaaradaha droniska ee shahiid ee Iiraan ay u adeegsanayso dagaalka Israa'iil oo qiratay in Hezbollah dagaalka ay la soo gashay carcar isla markaasna ay adeegsanayso awood iyagoo aan filayn in dagaalka ay soo galayaan dhamaan wararkan iyo waliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa caawa waxaynu ku bilaabaynaa taliyaha ciidamada badda ee ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan Ali Riza Tanzigari ayaa sheegay in ay beegsan doonaan maraakiibta Mareykanka iyo Britain ee xamuulka u sida Israa'iil ee gooshaya gacanka wuxuu sheegay in maraakiibtaasi la beegsan doono iyadoo aan loo eegin haddii ay og yihiin amaba aysan ogeyn waxa ay sidaan taliyaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay weerari doonaan maraakiibta jabisa amaradooda ee isku dayaya in ay ka gudbaan marin biyoodka Hormuz isagoo tilmaamay in maraakiibtaasi iminka aysan ka gudbayn maalintii afraad marinka Hormuz oo ay gabi ahaanba xireen dhinaca kale taliyaha ciidamada badda ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay bartilmaameedsadeen in ka badan 10 maraakiib ah oo ay ka mid yihiin kuwa shidaalka qaada intii uu socday dagaalka dhanka Israa'iil saacadihii la soo dhaafay waxa la arkayay koror aad u weyn oo aan horay loo arag oo duqeymo ah iyadoo Iiraan iyo Hezbollah ee Lebanon ay si wada jir ah u fuliyeen weerar ballaaran markii ugu horeysay tan iyo markii dagaalku uu bilowday Iiraan ayaa tuurtay daraasiin gantaalaha nooca balastiga oo ay ku garaacday Tel Aviv iyo agagaarka Qudus waxaa sidoo kale la sheegayaa in Hezbollah iyaduna koonfurta Lebanon ay ka soo qaaday weerar kala duwan waxaana ay ku wajahnaayeen Tel Aviv oo markii ugu horeysay maanta ay beegsadeen sidoo kale Haifa iyo waqooyiga Israa'iil ayaa weerar culus la eegtay Hezbollah ayaa sidoo kale weerarada maanta ay fulisay gaar ahaan kuwa ka dhacay waqooyiga Israa'iil waxay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyahan lahayn ee weerarada tooska ah geysta warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaysa in seeriga digninta ka bixiya gantaalada ilaa iyo caaw fiidkii laga maqlayay goobo kala duwan oo ka mid ah waqooyiga Israa'iil Hezbollah ayaa soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegtay in ay weerar la beegsatay saldhigga Meron oo ay tilmaamtay in ay weerartay sidoo kale saldhigga Nafah ee buuraha Golan ayaa la beegsaday bayaano dambe oo kooxdu mar dambe ay soo saartay waxa ay sheegtay in dagaalamayaashoodu ay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka Ramada David ee waqooyiga Israa'iil iyagoo adeegsanaya kooxo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku socday duulimaadyo hoose Hezbollah waxay intaasi ku dartay in ciidamadoodu ay weerareen saldhigga Tel Hoshmar oo ah xarunta taliska guud ee ku taal koonfurta bari ee Tel Aviv oo qiyaastii 120 kilomitir u jirta xadka Lebanon Hezbollah waxay kaloo sheegtay in ay gantaalo ku garaacday meel ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil oo ku dhow magaalada leeyahay Kiryat Shimona taasi ay sheegeen inay sababeen khasaaro toos ah ururka Hezbollah ayaa sidoo kale waxay sheegeen in waxyaabaha qarxa dhulka ay u aaseen ay ku qarxiyeen cutub ka mid ah ciidamada Israa'iil gaar ahaan agagaarka magaalada Khiyam kooxdu waxay sheegtay inay toos ula dagaalantay ciidamada isla markaasna ay gaarsiiyeen khasaaro ay xaqiijiyeen telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa ka soo xigtay mas'uul Israa'iili ah oo sheegaya inay lama filaan ku noqotay Hezbollah dagaalka inay ku soo biirtay iyagoo tilmaamay inaysan filayn arrintaasi mas'uulka ayaa intaasi ku daray in Israa'iil ay dhayeelsatay awoodda Hezbollah ee dagaalka ay ku soo gashay
qaladna ay sameeyeen gaar ahaan qiimeyntooda kooxda isagoo xusay inaysan filayn in gantaaladooda masaafo intaasi la-eg ay gaari karaan. xaaladdu marka waxay noqotay arrin la yaab leh. xisbullah waa laga yaaban yahay awoodda dagaalka ay la soo gashay. dhinaca kale duqaynta maanta ee ka dhacday magaalada talaabiib waxay noqotay mid lala yaabay burburka ay geysatay. muuqaalkan aynu daawanno saacadihii ugu dambeeyey warbaahinta iyo baraha bulshada lasoo dhigay. arrintan waxaa la sheegayaa inay tahay arrin welwel ku abuurtay dadka israa'iiliyiinta. habeenkii 6aad ayaa waxaa la sheegayaa israa'iiliyiinta inay ku jiraan godadka dhulka hoostooda. duqeymahan haddaba maanta ka dhacay talaabiib iyo magaalooyinka kale Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka oo la weeraray iyo safaaradaha Mareykanka oo la weeraray intuba waxay dhaliyeen xaalad aad iyo aad u adag. Israa'iil waxay bilowday iyo ciidanka Mareykankuba in arrintaasi ay ka jawaabaan oo ay qaadaan weerar aad u culus. caawa magaalada Dahraan si xun ayaa loo garaacay, waxaana lagu soo warramayaa in duqeynta dhacday ay ahayd tii ugu cuslayd intii dagaalka u bilowday. muuqaalkan aynu daawanno oo ka yimid magaalada Dahraan. وهاجاك markan wararka Israa'iil oo diin ugu laabanay Netanyahu waxa leeyahay wuxuu ka shakisan yahay Mareykanka in laga yaabo Israa'iil intuu ka gudbo inuu Iiraan la hadlo oo wada xaajood toos ah u la galo. haddaba aynu eegno warkan iyo waxa laga qoray. shabakada Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu aqalka cad weydiiyay inay jiraan wadahadalo qarsoodi ah oo hadda socda oo la leeyahay Iiraan. Axios oo soo xiganaysa ilo wareediyaha ayaa sheegaysa in sirdoonka Israa'iil ay heleen macluumaad dareen ku dhaliyay iyo shaki taasi oo ku aadan in uu jiro nooc xiriir ah oo u dhaxeeya Dahraan iyo Washington. Axios ayaa sidoo kale soo xigatay mas'uul Amerikaan oo sheegaya in Witkoff iyo Kushner ay ku dhawaad maalin kasta la hadlaan Netanyahu. agaasimaha Mossad iyo mas'uuliin kale oo Israa'iiliya ayaa sheegaya in Israa'iiliintu ay og yihiin in Mareykanku weli uusan la hadlin Iiraan, iyagoo xusay in Tehran ay fariimo u dirtay wasiirka loo dhigaya Mareykanka iyadoo loo marayo dalal kale oo ku yaala gobolka. laakiin Mareykanku kama soo jawaabin. laakiin waxa leeyahay Iiraan laftigeeda ayadoo warkan way beeninaysaa. waxay leedahay annaga maba gelayna waxa la yiraahdo wada xaajood iyo arrimahaasi. isla warar arrimahan la xiriira wargeyska Washington Post ayaa sheegay in aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka ay caawa qaban doonaan codbixin horodhac ah oo ku aadan in laga hortago Donald Trump inuu qaado weerar dheeraad ah iyo in ciidamo Mareykan ah loo diro waddanka Iiraan. wararkan sidoo kale waxaa ka mid ah hadda soo dhacaya safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad ayaa ku baaqday in muwaadiniinta Mareykanku ay si degdeg ah uga baxaan dalka Ciraaq. sidoo kale waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa ku baaqday in muwaadiniintooda ay dib u eegaan haddii ay qorsheynayaan inay safar ku tagaan jasiiradda Khubrus. war kaloo hadda soo dhacay ciidanka Iiraan ayaa sheegay inay soo rideen 6 diyaaradood oo ah nooca Hermes ee aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo lagu soo riday Dahraan, Isfahaan oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta. sidoo kale gobolka Kurdistan ayaa la sheegayaa in lagu soo riday diyaarad kale. waxaa kaloo wararka imika soo baxaya ka mid ah warbaahinta Iiraan ayaa waxay qiraysaa in diyaarad Mareykanku ay leeyihiin oo ah kuwa dagaalka la sheegayo in sidaasi oo kale loo soo riday. sidoo kale waxaa leeyahay diyaarad dagaal oo Israa'iil ay leedahay ayaa iyadana gantaal lagu weeraray, inkastoo la sheegayo war faahfaahsan inaan laga hayn. laakiin dhanka Iiraaniyiinta waxa ka soo kordha arrinkaasi waynu eegi doonaa. waxaan u gudbaynaa Mareykanka oo ka qayliyey diyaaradaha shahiid droniska ee Iiraan ay adeegsanayso iyo sicirka qiimaha shidaalka oo adduunka lagu soo warramayo inuu sii qaaliyoobayo. Israa'iilna waxaa leeyahay dagaalkan maalin kastaba lacag malaayiin dollar ayaa ugu kacaysa. oo dharka Iiraan aynu ku laabanno, Mareykanka iyo Israa'iil waxaa la ogsoon yahay inay isticmaalayaan nidaamyo casri ah oo dhanka tiknoolajiyadda ah oo ay ku ogaanayaan gantaalada Iiraan sida loo soo ridayo iyo meelaha laga soo ridayo. dayax gacmeedyo ayaa sidoo kale la isticmaalaya. Iiraan laakiin waxay bilowday shako kale oo cajiib ah. bacdama gawaarida laga rido gantaalada markii banaanka la soo dhiga loo jeedi karo oo la duqeyn karo oo la burburinayo, maanta waxay bilowday ilaa iyo galabta ilaa iyo caawa dhulka hoostiisa gantaalo ku jira ayaa soo dhacaya. inta aan laga warhelin gaarigan iyo satellite intaas qaban ama dayax gacmeedyada iyo diyaaradaha kale oo sirdoonka hawada ku jira
gantaalku dhulka ka soo baxaya halkaas laga soo ridaya muuqaalkan aynu daawano oo saacadii ugu dambeeyay soo baxay marka waad arkaysaan gantaaladii waxay ka soo baxayaan dhulka meeshii markii hore laga ridi jiray gawaari ama qalab kale loogu talagalay in gantaalada laga rido gantaalka hadda dhulka hoostiisa ka soo baxaya arrinta marka waxay noqotay arrin la yaab leh oo xeelad ah dagaalkan Iiraaniyiintu markay leeyihiin muddo dheer baan wadi doonaa maalinba waxay isticmaalayaan xeelad cusub dhinaca kale Mareykanka ayaa waxa ku qayliyay diyaaradaha la yiraahdo shahiid ee Iiraan ay adeegsanayso haddaba warbaahinta Mareykanka iyo arrintan waxa laga qoray haddii aynu eegno waxa leeyahay mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa waxay u sheegeen aqalka Koongareeska in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid ee Iiraan ay caqabad weyn yihiin isla markaasna nidaamyada difaaca hawada aysan awoodin in dhammaantood ay soo ridaan xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay ka digeen in dagaalku isku bedeli karo dagaal lagu qaldamay xisaabtiisa maadaama kaydka gantaalada ee ka hortaga diyaaradaha ay ku sii yaraanayaan Mareykanka senator Mark Kelly ayaa wuxuu sheegay in aysan haysan Mareykanku kayd ku filan oo nidaamyada difaaca ah iyo xitaa gantaalada wax lagu duqeeyo iyadoo lagu soo waramayo in arrintan ay keeni karto dhibaato weyn oo dhanka Mareykanka la soo gudboonaata waxa kaloo soo kordhay hadda soo dhacay telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa la yiri mas'uuliyiinta dawladda Israa'iil xukuumadda iyo qaybaha kale ayaa waxa looga digay qoysaskooda suurtagal inay tahay in lagu soo qaado weeraro dhanka internetka ama cyberka waxaan leeyahay arrintan is ilaaliya oo taxaddar muujiya dagaalkan Israa'iil ay ku jirtay iyo Mareykanka dhanka Israa'iil qasaaro ballaaran ayaa la sheegayaa in ay kala kulmayso marka laga tago weerarada iyo gantaalada qasaaro dhaqaale ayaa jira wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay ka soo xigatay maanta wasaaradda maaliyadda ee Israa'iil in qasaaraha dhaqaale ee ka dhashay dagaalka iyo duqeymaha xagga cirka ee Israa'iil ay wado iyo difaacyada maalin kasta ay ku fadhiyaan 9 bilyan oo shekal waa lacagta Israa'iil waxay u dhigantaa 2.93 bilyan waa maalintii oo kaliya macnaheedu waxa weeye waa 3 bilyan lacag ku dhow waxaan la qiyaasayaa qasaaraha dhaqaale inuu gaari karo 9.4 bilyan oo shekal sababtuna ay tahay baa leeyahay xayiraadaha hadda jira iyo dowladnimada iyo hakaday taliska difaaca gudaha Israa'iil ayaa waxay xadideen tigista goobaha shaqada isla markaasna arrinta waxay sababtay xiritaankii iskuulada marka la isku daro askarta kaydka loo yeeray dhamaan waxa soo idil waxa leeyahay dhibaato aad u culus ayaa Israa'iil soo food saaraysa waa tahay wararka kale ugu dambeeya imika soo dhacaya waxa kamid ah aqalka cad ee waddanka Mareykanka ayaa sheegaya in wali aan la qorsheynayn in Mareykanka uu ciidamo dhulka u diro waddanka Ciraaq arrintan waddanka Iiraan arrintan waa laga digay waxa leeyahay waxa soo baxayay muddooyinkii ugu dambeeyay arrintan halis inay leedahay oo laga yaabo Mareykanka inuu qalad u galo laakiin aqalka cad wuxuu leeyahay qorshaha hadda kuma jirto laakiin arrintan waa arrin suurtagal ayaa leeyahay waa laga digaya wixii ku soo kordha waynu arki doonaa insha Allah inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo